dhagaxaanta kaliyaha asal ahaan waa macdano iyo milixda badana kuwaasi guud ahaan waa calcium oxalate iyo milixda kaliyaha waxaanay noqdaan kuwa adag ku samaysma kaliyaha inkastoo ay ku samaysmaan kaliyaha haddana dhagaxaanta kaliyuhu waxay ku samaysmaan qayb kasta oo ka mid ah habdhiska kaadimareenka xaaladda biyo yaraanta ee jirka ayaa badana loo tiriyaa inay sabab u tahay samaysanka iyo isbedelada dhagaxa kaliyaha gala waana arrin saameynteeda leh marka jirka biyuhu ay gabaabsi ku noqdaan isla markaana dareere badan uu dibadda uga baxo iyaga oo kaliyaha sii maraya waxay fursad sare u tahay macdanaha iyo milixda jirka ku jirta inay si aad isugu soo dhawaadaan oo ay isku qabsadaan waana halka ugu horeysa ee dhagaxaanta kaliyuhu ay ka bilaabmaan balse intaynaan u gelin qaybta xigta balimkana qadar yar oo ogeysiisa haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo comment bixi like saar ku jijeliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyadaanu soo gelino siina shagre mahadsanid biyaha joogtaynta cabidda biyuhu waa midka ugu fudud noocyada lagu hortagi karo loona daweyn karo dhagaxaanta kaliyaha gala badana dadka aqoonta u leh arrimaha caafimaadka waxay soo jeedinayaan in la cabo maalintii ugu yaraan 2 litir oo biyo ah oo dhiganta 18 koob iyo in ka badan cabitaanka 12 koob oo biyo maalin kasta waa suurtagal inay ka caawiso si fudud inay ku soo dhaafaan ama ay si caadira u koraan oo ay ku ururaan kaliyaha liin la miiray liinta waxaa ku jirta maadada citrate isku dhiskan ayaa ka caawinaya burburinta calciumta ururtay ee kaliyaha waxaana hoos u dhigaysaa koritaankeeda cabitaanka 2 koob oo liin la miiray ka hore waxa la cabayaa iyadoo caloosha qofka ay maran tahay subaxa hore halka ka labaadna isna la cabayo saacado yar ka hor xilliga cashada waxaana ka caawin doontaa burburinta dhagaxaanta yaryar ee kaliyaha ku samaysma waxaana badanaa la soo jeedinayaa inaad ku samaysto gurigaaga waayo waxa suurtagal ah kuwa diyaarka ah ee suuqa lagu iibiyo inay sokor ku jirto ama aan si nidaamsan oo kugu habboon aan loo samaynin khalka tufaaxa khalka laga toojiyo tufaaxa waxaa sidoo kale ku jirta citric acid taas oo ka caawinaysa burburinta calciumta ururtay ee dhagaxa isu bedeshay 2 malqacadood ama qaado oo khalka tufaaxa oo lagu qasay litir badhkii oo biyo ah waxay hoos u dhigaysaa calaamadaha dhagaxaanta kaliyaha gala waxaana ka hortag u tahay samaysankooda waxa tala caafimaad lagu soo jeedinayaa in la cabo dhowr jeer maalintii waxaana wanaagsan tahay waxtarna ay leedahay cuntada ka hor in la isticmaalo caws qamandiga waxaa ku jirta maado sare u qaadaysa saaritaanka xaddi badan oo kaadi ah waa mid ku saamaxaysa in dhagaxaanta kaliyuhu ay si sahlan kaaga soo baxaan isla markaana ay hoos u dhigto khataraha samaysankooda iyaga waxaa kale oo ku jirta antioxidants kuwan oo ka caawinaya in habdhiska kaadimareenka uu iska saaro macdanaha iyo milixda waxaana u muuqeeg yahay cawstameerka oo badana dadka Soomaaliyeed ay u adeegsadaan kaliya xanuunka saliid saytuun waa saliid adag isla markaana waxay ka caawinaysaa inay si sahlan ku soo dhaafaan dhagaxaanta kaliyuhu iyadoo fudaydinaysa waxaana yareysaa heerka isliiska iyo xuqitaanka dhagaxaanta ee kaliyaha kuwaas oo dhaawici kara kaadimareenka waxa kale oo yareeyaan xanuunka iyo kaarka la dareemo iyadoo biyo lagu qasayo waxa la cabaa subaxa hore iyo duhurkii si la mid ah dawooyinka dhirta ka samaysan rumaanka waxaa ku jirta antioxidants waxaanu leeyahay astaamo awood badan kuwaas oo hoos u dhigi kara fursadaha samaysanka dhagaxaanta kaliyaha iyo inay si sahlan jirka uga baxaan waxa kale oo rumaanka oo la miiray laga helaa maado yareynaysa in kaadidu isu bedesho acid waxay sidaas oo kale ay ka hortagtaa isla markaana ay adkaysaa in dhagaxaanta kaliyuhu ay samaysmaan jooji milixda intooyinka milixdu ku badan tahay waxay sare u qaadaan dhagaxaanta kaliyaha maxaa yeelay waxa ay kordhiyaan xaddiga calciumta ee ku jirta kaadimareenka borotiinka cunitaanka xaddi badan oo borotiina sida hilibka beedka ama ukunta iyo kalluunka waxay sare u qaadaan heerka uric acid dhiigga taas oo waxyeelaysa kaliyaha hadaa tahay qof leh dhagaxaanta kaliyaha waxa la soo jeedinayaa inay laga maarmaan tahay inaad yareyso cunitaanka cunooyinkaas miisaan caafimaad leh iyo cunto caafimaadka waxtar u leh cuntooyinka fiber-ta leh waxaa loo tixgeliyaa badanka kuwa muhiim ah kana hortaga dhagaxa kaliyaha iyo daweyntooda ka fogow cabitaanada sida kuwa soodaha leh kaafiinta iyo alkoosha badanaa waxay sare u qaadaan khatarta dhagaxaanta kaliyaha sidoo kale cuntada ay ku badan tahay sokortu milixdu ama cusbadu iyo duxdu iyana waxay kordhiyaan halista dhagaxaanta kaliyaha gala